السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada madasheena jiraalka maanta waa barnaamijaynu ku daha qaadi doono waxyaabihii 24 saacadood ee u dambeeyay dunida soo wajahay ama dhacay intii karaankeenna Ilaahay ogolaanshihi madaxweynaha Mexico Claudia ayaa ku dhawaaqday taageerada muwaadiniinta Mexico ee ka qayb noqon kara qorshayaasha uu isku diyaarinaya Trump in uu dhaqan geliyo marka uu xafiiska tago ee mustaafurinta ah tan oo ah tii ugu ballaadhnayd taariikhda Mareykanka ee ka dhacda ee uu ballan qaaday markuu halka tago in uu fuliyo iyada oo Mexico bixisay tala bixin sharci iyo waraaqaha sharciga ee ay u baahan yihiin muwaadiniintu ay ku heli karaan muwaadiniintu hab digital ah hawshan oo loo xil saaray inuu hogaamiyo wasiirka arrimaha dibadda John Roman madaxweynaha Mexico waxa ay cadaysay dayrisay iskana diiday in aanay u adeegi doonin dal saddexaad oo aanay aqbali doonin muwaadiniin u dhashay dalal kale loona soo masaafuriyo Mexico marka oo ay qaadeen tallaabooyin lagaga hortagayo in aanay taasi dhicin ay muhaajiriin ka gudbaan xadka Mexico iyo kooxaha ka ganacsada daroogada loo dhima cashuurta oo Trump ballan qaaday ee 5% ah ee uu tibaaxay inuu ku soo rogayo Mexico haddii aan wax laga qaban muhaajiriinta ka soo gudbaya xadka u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka iyo kooxaha daraagiska ka ganacsada qodobka xiga dawladda Ciraaq ayaa ku wareejisay dawladda cusub ee Suuriya 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidankii lugta ee militarigii taliskii dadqalka ahaa ee Bashar al-Assad dawladda cusub ee Suuriya ayaa soo dhaweysay kuwaas oo ka gudbay xuduudka Suuriya iyo u dhaxeeya Ciraaq markii uu dhacay gacan ku dhiiglihii weynaa ee dadqalka ahaa Bashar al-Assad ciidankan shalay dib loo soo celiyay ayaa iskugu jira qaybta afraad ee ciidamada gaashaaman ah iyo qaybta 25aad ee fuliyaha ugallada gaarka ah qodobka xiga Mareykanka ayaa tan iyo 2012 markii uu xidhay safaaradii uu ku lahaa Dimashq caasimadda dalka Suuriya wuxuu maanta u diray wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda oo ay hogaaminayso haweeneyda Berberaliif oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda iyada oo la kulantay hogaamiyaha sare ee Suuriya Ahmed al-Shaaric kulankan oo ay ku sheegtay mid ku soo dhamaaday waji wanaagsan muujinaya isbeddelka ka hirgalay Suuriya waxaanay xog bixiyayaasha u sheegtay inuu Mareykanku meesha ka saaray 10 milyan ee dollar ee joolaan madaxiisa la duldhigay waqtigii uu ku jiray kooxaha kala duwan ee ay argagixisada u yaqaanaan reer galbeedka oo Mareykanku ka yahay qodobka xiga dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Gaza ayaa tilmaamay ama qoraal ku baahiyay in aanay isdhiibi doonin inta qof ka nool yahay in ay geeri sharaf la dhimanayaan ama ay guuleysanayaan qodobka xiga wasiirka tacliinta sare ee Algeria Kamal Bedri oo ka mid ah xubnaha ku dhowdhow madaxweynaha dalka Algeria Abdelhamid Tebboune ayaa maanta safar ku maray dalalka gobolka oo ay ka mid yihiin Eritrea iyo Soomaaliya labada madaxweyne ee dalalka Xasan Sheekh iyo Siyaas Daare ayaa ku wareejiyay labada hogaamiye dhanbaal uu ka siday madaxweynaha dalka Algeria Abdelhamid Tebboune socdaalkani waxa uu muuqdaa mid uu taageero dibadeed oo caalamiga ku raadinaya madaxweyne Tebboune markii toddobaadyadii hore ee la soo dhaafay sirdoonka Algeria ay fashiliyeen qorshe ay maaganaayeen sirdoonka Faransiisku oo ay doonayeen in lagu afgambiyo xukuumadda waddanka hogaamiyo madaxweyne Tebboune qorshaha sirdoonka Faransiisku ay wadeen wuxuu muuqdaa mid lagu taageerayo dawladda Morocco oo raadinaysa inay si dhaqso u hesho dhulka Saxaraha oo ay degan yihiin dadka asalkoodu yahay Sahraawiyiinta oo hoostaga maamulka jabhadda Polisario oo raadinaya madax bannaaniyada Polisario ay taageero ka hesho Algeria oo aan iyana doonayn dhulkan in lagu biiriyo Morocco si ay u hesho waxay Morocco heshiis la gashay Israel oo xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay sanadkii 2020 markaa oo ay Morocco Mareykanka kaga bedelatay heshiiskani dhulka Saxaraha galbeed inuu u aqoonsado dhul ka tirsan Morocco waxay u muuqataa colaadda dheer ee u dhaxaysa labada dal waa Algeria iyo Morocco in ay gashay marxalad kale oo halis ku ah marka uu hubeeyo Ruushku ee Algeria sabab la xidhiidha taageerada ay Morocco ka helayso Israel Mareykanka iyo Faransiiska